haddana waxaan guda galaynaa qaabka ama weyga loo isticmaalo barnaamijka Cisco Packet Tracer. meeshan cad waxaan ku magacaabeynaa work area, waa meesha aan ku shaqeyn doono. dhankan hoosena waa meesha aan kasoo dooranayno qalabka networking-ka. sida marka iskula barno weyga loo isticmaalo Cisco Packet Tracer, waxaan ku baranaynaa tusaale. waxaan wada dhisaynaa network ka kooban 5 computer iyo hal printer. kaba soo qaad waxa laga dalbay inaad network ka dhex sameyso 5 computer iyo hal printer. maxaa u baahan tahay? marka hore waxaan u baahannahay 5 computer iyo hal printer inaan helno. marka labaad waxaan u baahannahay switch inaan helno. switchkaas oo connection ka dhex sameynayo 5 computer iyo printerka. sidoo kale waxaan u baahannahay cablekaas oo isku xiraya marka switcheska iyo computerska iyo printerka. intaas ayaan u baahannahay. hadda waxaan baranaynaa marka hore waxaan ku hormaraynaa qaabka loo soo doorto computerada iyo printerka marka la isticmaalayo barnaamijka Cisco Packet Tracer. sida u hesho computerska waxaad dul imaanaysaa meeshaan. markaan falaarta dulkeena meeshaan waxaa ku dul qormayso ama kusoo hoos qormayso waxa loo yaqaan end devices. kaliya markaan ku siiyo waxaa meeshaan kaaga soo muuqanaya marka uu kaaga soo baxayo noocyada kala duwan ee end deviceska. end device waxaan kusoo sheegnay computerada iyo printerska iyo serverska. noocan ama qalabka ugu horeeya waxaa lagu magacaabaa PC waa computer. nooca labaad waa laptop. qalabka saddexaadna waa server. printerkana waa kana marka aad u baahan tahay printer inaad soo doorato. hadda waxaan dooranaynaa marka u baahannahay 5 computer. 5 computer u baahannahay desktop computer waa ka dhigi karnaa ama laptop waa dooran karnaa. hadda waxaan dooranaynaa marka computerkan. kaliya ay ku siinaysaa nooca computerka aad doonaysid. kadib waxaa la aadaysaa marka falaarta work area ama meeshan cad. kaliya ay ku siinaysaa. sidan waxaa ku haysanaa marka computer ayaan sidan ku haysanaa. hadda waxaa inoo dhiman inaan soo doorno 4 computer kale. mar kale aan ku laabanaynaa. kaliya aan ku siinaynaa. waxaan dul imaanaynaa meesha work area. kaliya aan ku siinaynaa. mar kale. mar afraad. computerka shanaad waxaan ka dhigaynaa laptop. hadda waxaan ku haysanaa marka 5 computer. 5 computer aan haysano waxaa inaga dhiman printerka ay inaga dhiman. sida marka printerka usoo doorano waxaan dul imaanaynaa marka printerka. kaliya aan ku siinaynaa. hadda marka waxaan haysanaa 5 computer iyo printer. waxaa inoo dhiman marka inaan soo doorno switch. switchkan kaalintiisa waxa ay tahay inuu connection ka dhex sameeyo qalabkan. waxaan ku soo sheegnay switchku inuu yahay qalabka inoo matalo albaabka laga galayo network-ga. dhammaan marka device wuxuu ku soo wada xirmayaa marka switchka. waa inaan helnaa switch. sidaa marka switch soo doorato waxaa imaanaysaa halkan. markaan falaarta dulkeena meeshan waxaa ku soo qormaayo network devices. halkan waa halka laga doorto qalabka networking-ka sida routerska iyo switcheska. markaan kali ku siiyo waxaa meeshan hoos inooga soo baxaya marka qalabka kala duwan ee networking-ka. hadda inaga waxaa rabnaa kali switch. sidaa marka switch u hesho waxaa dul imaanaysaa meeshaan. haddaan falaarta dul saaro waxaa meeshaan kaaga soo muuqanayo switches. marka kali ku siiso waxaa halkan kaaga soo baxayo noocyo kala duwan oo switchku uu leeyahay. inaga hadda waxaan dooranaynaa nooca ugu horeeyo. switchkan ayaan dooranaynaa. modelkiisana waa 2960. kaliya ayaan ku siinaynaa switchkan. waxaan dul imaanaynaa work area meeshaan ayaan kali ku siinaynaa. haddana waxaan helnay switch ayaan helnay. hadda marka waxaa inoo dhammaystiran marka qalabka 5 computer iyo printer iyo switch dhammaan hadda waa wada haysanaa. waxaa inaga dhiman marka cableka isku xiraya marka computerada iyo printerka ku soo xiraya switchka. sida u soo doorano marka cableska waxaan dul imaanaynaa halkan. markaan falaarta dul keeno waxaa meeshan ku soo qormaayo connections. waa meesha laga doorto cableska. hadda kali ku siiyo meeshan waxaa meesha inooga soo baxaya marka noocyada kala duwan ee cableska. waan qaadan doonaa cableska noocyadooda kala duwan. hadda kaliya waxaan ka rabaa inaad soo doorato noocan saddexaad. markaan falaarta dul saaro noocan saddexaad meeshan hoose ila fiir wax ku soo qormaayo. markaan falaarta dul saaro waxaa ku soo qormaayo copper straight through cable. cablekan ayaan soo dooranaynaa. cablekan waa cablekan u isticmaalayno inaan connection ka dhex sameyno between switchka iyo computerada iyo printerka. kaliya aan ku siinaynaa cableka. markii aan cableka soo doorano waxaan dul imaanaynaa switchka ayaan dul imaanaynaa. kaliya aan ku siinaynaa. marka switchka dushiisa kaliya ku siiso waxa ku soo baxaya marka portiska ama godadka uu leeyahay switchka. godadka marka waa godadka ay ku soo xirmayeen computerada iyo printerska. sidaad u jeedid marka godkaasna wuxuu leeyahay number ayuu leeyahay. godkan ugu horeeyo numberkiisa waxaa waaye fast ethernet 01. godka labaad fast ethernet 02. godka saddexaad fast ethernet 03. godkaas wuxuu leeyahay number ayuu leeyahay. ereyga marka fast ethernet waxaa loola jeedaa godkan wuxuu support gareeyaa speedkiisu wuxuu yahay 100 megabit per second.
hadda dul imaano labada good ugu dambeeyo ama labada ports ee ugu dambeeya waxa ku qoran Giga Ethernet 01 Giga Ethernet 02 labadan good waxay support gareeyaan speed gaarayo 1000 megabit per second godadkan kaliya waxay ku kala duwan yihiin speedka ay kala duwan yihiin godka lagu magacaabo fast ethernet speedkiisu wuxuu gaaraa 100 megabit per second godka lagu magacaabo Giga Ethernet speedkiisu wuxuu gaaraa 1000 megabit per second laakiin godkan kale ama portigan lagu magacaabo console waxaan u isticmaali doonaa in switchka configuration ku sameeyno markii aan gaarno darsiga ka hadlayo qaabka ama wayga loo configure gareeyo switcheska waxaan isticmaali doonaa portigan lagu magacaabo console-ka hadda marka switchka configuration kuma sameynayno kaliya waxaan rabnaa inaan kombiyuutarada iyo printerka aan ku soo xirno switchka waxa inoo banaan marka laba midkood inaan ku soo xirno kombiyuutarada iyo printerka switchka aan doorno good port oo speedkiisu uu yahay 100 megabit per second ama inaan doorno good ama port oo speedkiisu uu yahay 1000 megabit per second simple ahaan hadda waxaan dooranaynaa godka ugu horeeyo oo lagu magacaabo fast ethernet 01 kaliya aan ku siinaynaa sida u jeedid cable-ka uu ila socdaa darafka cable-ka wuxuu ku xiran yahay switchka darafka kale wuxuu sugayaa marka inaan ku xirno computer ama device kale device-ka aad doonaysa ayaa dul tagaysaa marka kaliya ay ku siinaysaa waxa ku soo baxaya marka ports uu leeyahay ama godad uu leeyahay computerka godkan ugu horeeyo oo lagu magacaabo RS232 waxaan dooran doonaa godkan markii aan soo doorno godka lagu magacaabo console oo ku yaalo switchka waa markii aan switchka rabno inaan configuration ku sameeyno console portiga switchku uu leeyahay waxaan ku soo xireynaa computerka portigiisa oo lagu magacaabo RS232 waan arki doonaa hadda laakiin waxaan dooranaynaa godkan ugu dambeeya oo lagu magacaabo fast ethernet sida hadda magaciisa aan ka dareemayno computerkan speedka uu support gareeyo waa 100 megabit per second kaliya aan ku siirinaa meesha markaad waxaan ka helnay connection u dhaxeeyo computerka iyo switchka haddana waxaan dhameystireynaa connectionka switchka iyo computerada iyo printerka waxaan soo dooranaynaa cable-ka copper straight through cable kaliya aan ku siirinaa switchka waxaan dul imaanaynaa marka portiga aan doonayno hadda sida u jeedid portiga lagu magacaabo fast ethernet 01 qadka ayuu ka baxay waayo waa isticmaalay portigaas computer ay ku xiran hadda waxa inoo banaan inaan computerada kale ku soo xirno switchka laga bilaabo portiga numberkiisu uu yahay fast ethernet 02 computerka labaad waxaan ku soo xirinaa portiga labaad kaliya aan ku siinaa waxa dul tagaynaa computerka waxaan dooranaynaa fast ethernet 0 waxaan soo dooranaynaa marka la cable-ka kaliya ku sii switchka waxaan inoo soo haray marka hadda fast ethernet 03 laga bilaabo ilaa portiska kale fast ethernet 01 iyo 2 qadka ay ka baxeen waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo portiskan sida iskugu xigaan inaan computerada ugu xirtid shardi ma aha hadda labada port ugu horeeyay fast ethernet 1 iyo fast ethernet 2 way isku xigeen labada computer ugu horeeyay aan ku xirnay computerka saddexaad kaba soo qaad waxaan ku xiri karnaa portiga 10aad fast ethernet 10 waxaan dul tagaynaa computerka kaliya aan ku siinaa waxaan soo dooranaynaa mar kale cable-ka kaliya ku sii switchka waxaan dul imaanaynaa marka portiga afaraad kaliya aan ku siinaynaa waxaan dul imaanaynaa computerkan kale waxaa imaanaynaa sidoo kale mar kale soo dooro cable-ka waxaan dul imaanaynaa portiga saddexaad waxaan ku xiraynaa printerka mar kale soo dooro cable-ka waxaan dul imaanaynaa switchka dushiisa kaliya ku sii portiga sagaalaad waxaan ku xiraynaa laptopka hadda waxaa inoo dhammaystirmay connectionka u dhaxeeyo computerada iyo printerka waxaan darisan ku baranay wayga iyo qaabka loo soo doorto switchka iyo wayga iyo qaabka loo soo doorto computerada iyo printerska iyo sida connection looga dhex sameeyo between computerska iyo switchka